بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشركين امتحانها oo aan uga hadlaynay muhiimadda ay macaamiishu u leedahay shirkadda iyo macaamiishu inay yihiin laf dhabarka shirkad kasta oo adduunka jirta sidaas daraadeed waxaan maanta aan ka hadli doonaa soo dhaweynta macaamiisha macaamiil in la soo dhaweeyo ayaan ka hadlaynaa maanta macaamiil soo dhaweyn macaamiil in la soo dhaweeyo waxa laga faa'iidooyin aad u fara badan ayaa laga faa'iidaa shirkadda revenue-geeda ama dakhligeeda inuu kor u kaco laga faa'iidaa shirkadda in la aamino laga faa'iidaa shirkadda in sumcad yeelato laga faa'iidaa shirkaddu inay hore u socoto horumar weyn gaarto ayaa laga faa'iidaa marka bal aan aragno insha Allah soo dhaweynta macaamiisha horta qiimo aad iyo aad u weyn ayay noogu fadhisaa macaamiishu wax kasta ayaga ay ka go'aan qaabkay u soo dhaweynayaan yani macaamiishu in loo istaago waay marka ay shirkadda yimaadaan aad loo qadariyo waay oo loo istaago aad loo qadariyo waay macaamiisha marka qadarintaas aadka u muhiimka ah in loo sameeyo ayaa la rabaa soo dhaweynimada ma ahan mid sahlan horta qof kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku manaystay kaliya inuu dabeecad yeesho dulqaad yeesho ayaaba halkii ahay macaamiil inuu soo dhaweeyo ay ku soo dhacaysaa dadka xataa ayagoo dukaanada iskaga furan dukaamada ayaga leh ay waxaysan isku dayeenin inay soo dhaweeyaan macaamiisha soo dukaanka xataa leh ama shirkadii leh laakiin waxa loo baahan yahay qofka wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku manaystay ayaa jira oo yani dulqaad ah kaas oo qofku leeyahay aad iyo aad ay u soo dhaweynaysaa qofkaas inuu macaamilka si fiican u qaabilo marka kaas waa taas waxa kale oo jira dad fara badan oo kororsiimo sameysteen waxbarasho sameysteen oo la baray ama dhageystay muhiimadda ay leedahay macaamiisha ay leedahay bartay waa jiraan marka kuwaasna wax way saacidaysaa si kastaba ha ahaatee qodobada waxay muujinaysaa waxaa jira qodobo muhiim ah oo la dhihi karo waa qodobada lagu soo dhaweeyo macaamiisha ayaa jira qodobadaas marka inta uga hadlaynaa horta u dhool cadee macaamilka ku yimid qof horta markuu ku yimaado u dhool cadeyn waxa laga wadaa in yani loo qoslo loo muujiyo farxad yani taas la dhool cadeyn taas la in farxad loo muujiyo ayaa dhool cadeyn la dhahaa ka bacdi waxa la lahaa salaam ina salaantid ama salaantu gacan qaad ha ahaato ama assalaamu calaykum ha ahaato laakiin ina salaamayso soo dhaweeyso jeceshahay ha dareemo waxa kale oo jira saaxiibtinimo u muuji sida qof aad taqaan oo kale oo seeta xaalad ka waran walaal soo dhawow meeshaadi waaye ay maxaan ka caawinaa ina dhaho wuxuu markaas u fahmaaba inaad tahay qof yaqaano oo meel isku aragteen laakiin asagu soo saari karin qofkan waa ogtiin qofka uu yaqaano wuxuu jecel yahay inuu wax gato ayuu jecel yahay sababtoo ah waa qof yaqaano kale uu aaminaaba qofkan waa ku gaada iyo waa ku xaleyna ma aaminsana si fiican u dhageyso oo si attention qofka macaamilka ah waxa uu rabo oo dalbanayo si oo waadax ina u fahanto ayaa laga rabaa see ku heli kartaa marka waxa ku heli kartaa ina attention siiso si fiican u dhageysato ayaa ku heli kartaa marka si fiican u dhageyso hadii laakiin markii oo qofka aad warabto inuu xaq gado aad mashquulsan tahay oo Facebook iyo xalaas ku mashquulsan tahay oo attention-kaaga oo soo joogin wax waaye qasaaro weyn ayaa ka soo gaaraysa kula hadal cod ku haboon qofka macaamilka marka la hadlaysid waxa laga rabaa inaad kula hadashid cod ku haboon waxa laga wadaa cod aan qayla ahayn u muujinayo qofka in la rabo laakiin kaalay maxaa u baahneed ii sheegno maxaa soo doonto maanta lama rabo inaad dhaho waxa laga rabaa inaad qofka qiimeyso
walaalahay soo dhawow maxaa u baahan tahay qaabka jeclaalaad ii sheeg yaa inaad dhahdaa laga rabaa marka aad la hadlayso ha ka dareemaan jirkaaga marka aad la hadlayso waxaa laga rabaa inuu jirkaaga uu ka dareemo inaad tixgelinayso inaad qiimeynayso inuu jirkaaga ka dareemaa laga rabaa jirka maxaa laga wadaa waa body language waa qof oo marka uu la hadlayo garbaha nuuxinayo kale haddaan noqoto macnaha waxa markaas oo kale xa iga galo kale qof oo qoorta xoogaa dhinac u jilcinayo inuu warkaaga uma socdo kale marka qaabkaas oo kale ma rabo qofka waxaa la rabaa inaad jeceshahay inaad u sheekeynaysid inaad u dhoola cadeynaysid oo u jeedo qofku ayaa laga rabaa okay marka waxaan sameynaynaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaa maanta insha Allah soo dhawaada haday u baahan tihiin buuga iyo xalil la xiriira numberkaas ayaa nagala soo xiriiri kartiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.